بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولا ليال وحان هل كان ينكوسو قد بنينا وبحين كوبنا وكسابسا جهاد كسعودة صومالي قلبيد. صومالي قلبيد guud ahaan waa dhulka muslimka ah ee ay xabashidu gumaysato muddadii qarniga ahayd iyo ee la soo dhaafay. marka Soomaali galbeed waxay ahayd dhulkii muslimka ee xadaarada islaamiga ee geeska Afrika matalay. waxaan ognahay magaalada Harar inay ahaan jirtay magaalada loo doonto culumta sharciga ah iyo maaragtay markaana ahayd matalaysay xadaaradii islaamiga ahayd ee geeska Afrika. waxaa jiray boqortooyin islaami ah oo ka jiray Harar iyo nawaaxigeeda iyo Zeyla dhulkaas iyada ah oo loolan adag kula jiray gaaladii nasaarada ahayd ee xabashida oo markaa doonaysay iyadoo inay dhulka muslimiinta qabsato. waxaa la xusi karaa dhaqaaqyadii jihaadiga ahaa ee ugu xooga badnaa ee qarnigii 16aad soo maray ee muslimiinta geeska iyo gaalada xabashida dhex maray. waxaa hogaaminayay imaamkii Axmed Gurey la oran jiray, Axmed ibn Ibrahim Axmed Gureyna loo yaqaano. imaamkaasi dagaalo adag oo 12 sano soconayay ayuu la galay gaaladii xabashida, isla markaana dhul badan oo muslim lahaayeen ayuu ka xoreeyay, dhulalkoodana waa uu qabsaday. Axmed Gurey kadib boqortooyinkii islaamiga ahaa way sii jireen, waxaana Harar ayaana xarun u ahaan jirtay ilaa ay ka yimaadeen qarnigii 19aad dhamaadkiisii gumaystayaashii reer Yurub ee markaa caalamka islaamiga guud ahaan qaybo badan oo kamid ah qabsaday, gaar ahaan Soomaaliya u qaybiyay dhowrka qaybood ee kala qabsaday. gumaystayaashaasi waxay sahleen in ay xabashidu ku guuleysato inay qabsato magaaladii Harar oo caasimadii diineed ama caasimadii islaamiga ahayd ee ummadda muslimka ee geeska Afrika ay lahaayeen. 1887 ayay xabashidu qabsatay dhulka magaalada Harar. waxa ay masaajidkeedii weynaa u bedeleen kaniisad, waxa ay madaaristii diiniga ahayd ka dhigeen meelo ay maartay iskuulada nasaarada wax lagu baro. dadkii muslimka ahana waa ay laayeen, kutubtii iyo daraasaadkii islaamiga ahana waa ay itlaafiyeen ama waa ay baabi'iyeen. xolaadaas gaalada ku jirta xabashida ah way sii socotay, waxa ayna gumaystayaashii reer Yurub u sahleen in ay dhulkii Soomaali galbeed ku wareejiyaan qaybo badan oo kamid ah. waxaa laakiin ka hor yimid dhaqaaqyo jihaadi ah oo ugu xoog badnaa dhaqaaqii Sheekh Maxamed Cabdulla Xasan qarnigii 19aad dhamaadkiisa ilaa qarnigii 20aad bilowgiisii. waxaa kaloo iyadana xigtay in 1964 ay jireen dhaqaaqyo iyagana ka bilaabmay dhulka Soomaali galbeed oo dhaqaaqi la oran jiray Nasrullah oo ay hogaaminayeen odayaal iyo waxgarad iyo ugaasyo iyo salaatiin iyo culimadii dhulka Soomaali galbeed. iyadana muddo ay socotay, kadibna waxaa bilaabmay 1977 dhaqaaqii gobonimodoonka ahaa ee jabhadii xoreynta Soomaali galbeed oo ay dawladii Soomaaliyeed taageereysay. dagaal adag ayaana dhex maray iyaga iyo xabashida, isla markaana dhul badan oo muslimiinta Soomaali galbeed kamid ah lagu xoreeyay. laakiin waxaa dhiciseeyay faragelintii shisheeyaha ahayd iyo gaaladii xabashida oo u habar wacatay gaaladii waaweyneed ee markaa adduunka ka talinaysay. markii intaas kadib dad badan oo muslimiin ah oo Soomaaliya galbeed ah ayaa u soo qaxay wadanka Soomaaliya, isla markaana waxay yimaadeen jamhuuriyaddii Soomaaliya. waxaa markaa muddo ay ku noolaayeen, dad badan baa wax ku bartay, diintana ku fahmay, culimo badan iyo ducaad badan baana ka soo baxay oo jaamacadaha islaamiga ee dibadda ka soo baxay. dib ayay ugu laabteen 1991 markii dawladda Soomaaliya burburtay. sanad kadibna 1992 waxaa bilaabmay jihaadka ay culimada iyo shabaabku hogaaminayaan ee hadda ka soconaya Soomaali galbeed. 1992 ilaa sanadkan oo maraaxil kala duwan oo cadowgu isku dayay in uu xakameeyo ama uu tirtiro, laakiin walillaahi alxamdu wax badan kumuusan guuleysan. mujaahidiintuna waxay cadowga la galeen boqolaal dagaal oo ay ku jabiyeen, dhibaatooyin badanna way u geysteen, wayna naafeeyeen. isla markaana iyagana alla wuxuu ka doortay shuhado badan iyo dad badan oo dhaawac ka soo gaaray iyo urur badan oo ku agoontoobay iyo qoysas badan oo ku soo barakacay. cadowga Tigreega
وهذا توبيا حكومنا وعدوغا ugu tacasub badan oo dadka ugu tacasubka badan ee nasaarada Kirishtaanka ee Itoobiya xukumay weeyaan waxayna leeyihiin damac dheer oo ku wajahan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan sidaa darteed waxa ay mujaahidiintu wadi doonaan dagaalkaas ay kula jiraan inta ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay kala kulmayaan kana raali gelinayaan isla markaana ay dhulka muslimka ka xoreynayaan gaalada kitaabka Ilaahayna ay u kor yeelayaan ama Ilaahay diintiisana ay kor yeelayaan markaas walaalaha muslimiinta umuuman ee Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay fahmaan cadawgooda taariikhiga ah iyo gaalada nasaarada xabashida ah in ay maartay u istaagaan sida isaga celin lahaayeen isla markaana ay u garab istaagayeen walaalahooda mujaahidiinta ee Soomaali galbeed ugu dambeyntii waxaan Ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa ta'ala inuu noo gargaaro oo gaalada guusha inaga siiyo Itoobiyana aad ay u tabardaran tahay waana Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu inooga guuleynaya Allahu akbar ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أولا يرون أنهم يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذ يعدكم الله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ليحق الحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم